السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيرت شرفت له كسو دواada janaalka sirta quruxda dabiiciga maantana waxaan idiin wadaa toonar dabiici ah taasoo laga sameeyay bariiska biyihiisa iyo sidoo kale qajaarka ama cucumber hadba kaad u taqaanid haddaad doonaysid inaad baratid sida loo sameeyo fadlan daawo fiidiyoga oo dhamaystir adiga oo mahadsan. waxaan u baahanahay bariis nooca darabtid basmati aduu bariis cad white rice qajaar cucumber iyo rose water ama alwarda haba ka u taqaanid biyaha uwaxa. sidoo kale waxaan u baahanahay spray botolka caagan nooca sprayga saa u buuf dhaha 2 xabo ah iyo qalabka inta kalena sida shaashada ka muuqato insha Allah la socod waxaan fiidiyoga dhameystiran biidnillah alkariim. marka insha Allah waxaan ku bilaabi doonaa bariiska. marka hore bariiska soo dhaq soo nadiifi si fiican u soo dhaq sida caadiga bariiska loo dhaqo u soo dhaq kadibna insha Allah waan boiling ayaan ku sameyn doonaa waa karkarin doonaa 2 ilaa 3 daqiiqo insha Allah. biyaha marka hore soo karkarso markay biyaha ku karkaraan ku shubo ama almost ay soo karkaran rabaan waxaadna markaas ku sugtaa 2 ilaa 3 daqiiqo anagoo soo koobayna faa'iidada ay u leedahay biyaha bariiska maqaarka. run ahaantii bariiska biyihiisa waxay u leedahay faa'iido aad u weyn maqaarka iyo timaha intaba waxaana aad looga isticmaalaa dalalka Asia. bariiska waxaa aad uga buuxo essential amino acid iyo minerals taasoo aad muhiim ugu ah uguna fiican maqaarka. waxaa kaloo bariiska ku jira maado loo yaqaan ferulic acid taasoo ah powerful antioxidant anti-inflammatory. sidoo kale bariiska waxaa ku jira fitamiinada kala ah B1, C and vitamin E taasoo ka caawisa maqaarka inay daboosho dulduleelada maqaarka isla mar ahaantaasna ay siiso maqaarka qurux dhaldhalaal iyo dheeraad ah. bariiska sidoo kale waxay ka caawisaa maqaarka inay ka hortagto qoraxda ama sunbaanka ama waxaa ku jirto sun protection. haddaba sida aad aragtaan ama idinkaga muuqato shaashada bariiska waxaan soo karkarinay 2 to 3 minutes haddana waan miiraneynaa biidnillaahi kariim. markaan miiranana dhacaankaan kala baxno waxaan ilaa 10 daqiiqo camal baan deynaynaa si uu qabowdo ama ay u noqoto diirimaad. kadibna insha Allah waxaan ku shuban doonaa botolkeena spray botolkeena ku shuban doonaa insha Allah. waxaana u isticmaali doonaa acetoner waxaad ku kiib gareyn kartaa ama ku xareysan kartaa talaagada waxaana isticmaali kartaa ugu yaraan ilaa isbuuc biidnillaahi kariim. daawasho macaan please fadlan haddii aad channelkeena ku cusub tahay subscribe ka saar like saar sidoo kale tana la wadaag asxaabtaada ama gabdhaha kale oo saaxiibadaada ah si ay iyaguna uga faa'iideystaan. run ahaantii toonarkan aad buu u fiican yahay waana wax fudud oo jiib ah gurigaaga dhexdiisana aad ka helaysid. bariiska aad karinaysid ama reerka aad u karinaysid ayaad kala bixi kartaa biyaha sida aad ka arki doonto. aniga waxaan maanta isticmaalay bariiskii aan qadada ugu talagalay inaan karsado ayaan marka hore 5 minutes karkariyay si aan uga la baxo biyaha. sida ma ahaantaasna qajaarkana sidoo kaleeto dhacaankan kala baxay ma tuurin waan isticmaalay waana arki doontaan ugu dambeyn qaabkan oo isticmaalay. run ahaantii waa isku qurxi waxyaabaha dabiiciga isla mar ahaantaasna cun oo isku qurxi way sheekada. cotton ayaa isticmaali kartaa sida aad aragtaan ama sprayga caadi wajiga buf baa ku siisan kartaan ama cotton ayaad intaad soo dhexgelisid ama aad ku buufisid ayaad isticmaali kartaa. gacanteeda inta ku tusanaya biidnillaahi kariim saasa ugu isticmaalaysan saasa tartiib baa si gentle ah ama si yaroo habi ah ama degan ayaa saas ugu masaajeynaysaa wajigaaga. mana la rabo inaad xoqdid wajiga waayo haddii aad wajiga xoqdid wuxuu sameynayaa saagin wax la dhaho taasoo ah micnaheeda inuu wajiga kusoo dhacdhaco. so always ha wajigaaga xoog ha u soo riixriixin si aayara u saarsan insha Allah
ama sida ugu buufbuufi spray botolka saasaa aada uga muhiimsan ugana fiican runtii. labadaba tii kuu fudud waad sameyn kartaa, labada dariiqaba tii kuu fudud insha allah sameey. haddana waxaan sameysan doonaa qajaarkeena fiidiyowga la socda. haddii aan soo koobno faa'iidada ay u leedahay qajaarka maqaarka waxaa ka mid ah inay wejiga qoyso eena ka dhigto soft, especially xilliyada kuleelaha jiro oo kale wejiga way qoysaa, biyo ayay siisaa. isla mar ahaantaasna waxaa kaleeto ay aada ugu fiican tahay madmadooga indhaha hoostiisa ama hyperpigmentationka, waxyaabahaas aada ayay ugu fiican tahay. dulduleelada maqaarka inay xirto iyo inay wejiga taagto, feereyso, anti-aging properties ay ku jirta. isla mar ahaantaasna faa'iidooyinka kale leedahay waxa waaye ama faytamiinada ay ka kooban tahay vitamin C, vitamin E, vitamin K, potassium iyo waxaa kaloo ku jirto vitamin A oo aada ugu fiican wejiga. isagana faytamiino badan oo B1 iyo B2 B5 iyo B6 ayaa ku jirto aan lasoo koobi karin qajaarka oo run ahaantii aada dhammaan ugu fiican ama nafaqo u ah wejiga. qajaarka faa'iidooyinkiisa intaas ayaan insha allah kusoo koobeynaa. fiidiyowgan inta ka dhiman la daawo. hadeerna waxaan maraynaa qajaarka ayaan xoqeynaa, weliba qeybta yaryar ee bahasha lagu xoqaan ku xoqeynaa. haddii aad rabtid waa shiidi kartaa oo mashiinka lagu shiido sharaabka oo nooca yaryarka ah baad ku shiidan kartaa, dhacaankasaa ugala baxdid. balse aniga hadeer waan kaasaan ku xoqeeya si aan dhacaanka ula baxo insha allah biidnillahi kariim. ka faa'iideysi wacan akhyaarta sharafta leh. toonarkan guriga aan ku sameynayno waa run ahaantii wax sahlan oo jikadaada dhexdiisa aad kala xeleysid, qarash iyo waqtina kaa dhumin doonin biidnillah. sidaa daraadeeda haddii aadan garanaynin toonar inuu u balansi gareeyo pH levelka of your skin, maqaarkaaga macnaha pH levelkiisa, fadlan kasoo fiirso fiidiyowgii aan kasoo sameeyey. waxaan soo dhigi doonaa fiidiyowgan meesha u dambeyso ayaan soo dhigi doonaa, kana soo baro kasoo faa'iideyso waxaa la dhaho pH ama toonar insha allah. faa'iideysi wacan waa wax fudud oo jikadaada ka dhaxeli kartid oona qarash iyo dhibaato iyo lacagtoona aan kaaga bixinin, ogana sii faa'iideeyay dhammaan asxaabtaada aad jeceshahay. bariiskii maanta aan nafteeda wejigeyga ku qurxiyey qajaarkii ayaan isla mar ahaantaasna qada ka samaystay. waa wax cajiiba, waxba hadaadinin lamadaadii cuntada waa ceesh xalaal ah, waa wax nimco ilaahay ku siiyey, dad baanan haysanin. alxamdulilah waa inaan dhahnaa ilaahay ugu mahad celinaa oo isla mar ahaantaasna aan dhoornaa xuquuqda ay nagu leedahay raashinka ama cuntada anagoo isku qurxinayno. waxaa la dhahay cun oo isku qurxi cuntooyinka dabiiciga ah. iyo basbaaskayga waa kana alaabteeda isla dhacaya dhammaan akhyaarta janaalkayga ku xiran. waxaan idinkaga tegayaa kheyr iyo baraka. assalaamu calaykum waraxmatullahi.